السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنا كيني مع مشرف ودلس ودواد مركز الدنيا ذات الجوكتين أصحابتي القالية والسلامة يا wax badan horta waxaan ka soo sheekeynay gabdhaha dhibaatada ay ka tabanayaan ragga, laakiin maanta waxaan ka sheekeynaynaa mid ka duwan taasoo wiil qiso ku dhacday wiil yar oo Soomaaliyeed ayaa maanta ka sheekeynaynaa dhibana walaalahayga qaaliga oo real oo been ahayn oo run sidii runta ay ka hadlayso ma fahanti. waxaa dhacday asxaabtayda qaaliga wiil yar aabihiis iyo hooyadiis isla joogeen. aabihiis iyo hooyadiis si iskula joogeen wiilkii markuu jiro adiga 10 sano markuu jiro baa waxaa dhacday hooyadii inay dhimato ay geeriyooto, Allah u naxariisto. hooyadii markay dhimatay wala asxaabta qaaliga odagii wuxuu guursaday gabar yar oo 15 jir ayuu guursaday. hooyadii markay dhimatay muddo kadib ay ka soo wareegtay dhimashadiisa dhimashadiisa muddo kadib ka soo wareegatay buu wuxuu sameeyay gabar yar loo guuriyay oo cidda dad tolka loo soo keenay. gabar yar oo 15 jir loo guuriyay odagana waayay. wiilku wuxuu ku noolaa gurigii gabadha yaraad oo ku guursaday aabaha inta badan qurbada ayuu jiray. wadanka Sacuudiga ayuu ka soo shaqeynayay oo ku maqnaa in badan. waxaa dhacday maalin maalmaha kamid in waxaa dhacday oo aabihii oo gabadhii markuu guursaday wiilkii uga tagay asaga wadankiisii ku laabtay. gabadhii oo yeelatay way dhashay waa la joogay odagii yani uu soo laabtay. soo laabashadii wiilkii wiil weyn u noqday adiga 20 jir camal markaas soo noqday. soo laabashadiisa dambe ayuu u imaaday xaaskiisii xoogaa bilooyin la joogay. bilooyin kadib haddana uu xoogaa uur yar yeelatay wuu ka tagay aabihii. wuxuu isaga tagay inuu kuwii labada ilmood oo kale u dhashay gabadh yareed oo 15 jirka ahayd iyo wiilkii habartiis dhimatay ku soo koray meeshaas. asxaabtayda qaaliga waxaa dhacday in gabadhii odagii uu baxay wadankii Sacuudiga u laabtay. sidoo u maqnaay in badan kadib baa waxaa dhacday maalin maalmaha kamid in wiilkii ay la faraac ciyaarto oo tiraahdo haye nafii shaydaan ayaa dadku ku xariiray. waxaad billaah min shaydaarjin waa arin aad iyo aad looga xumaaday wallahi billahi. waxaa dhacday in wiilkii ay ayadii damac ka soo galo ilaa odageedu uu ka maqan yahay inta badan ma la joogo. wiilkii odagii dhalay baaba damac ka soo galay naf iyo shaydaan baa ku xariiray. shaydaan baaba soo yiri maanta ama wiilkan maanta soo dhaweyso. wiilku waa wiil 20 jir ka iskaarin xoog ma sha Allah asaga laakiin naagta hooyadiis inay tahay oo hooyadiis oo kale ay tahay ayuu dhankiisa ay ka tahay, laakiin dhinaca oo gabadha waa dhibaatada meesha ka imaaday. ilaa ku baahanaa kaalay tirano ana xarba ani adiga caaw aad ila jiifto sariirtan ay jiifto maayo dhahay ilaahan ka magan galo waxaas subxaanallah. adiga dhan walba ka martay si walba yeeshay wax walba isku dayday dhan walba ka soo martay. wiilkii yaray wuu ka dhaafay wuxuu yiri maya subxaanallah ilaahan ka magan galay. wuu ka diiday wuu ka cararay wuu ka tagay intuusan ka tagin oo son ka cararin oo ka tagay ka diiday. laakiin bay waxay tiri markay arintii oo rabtay oo suurta galweysay ay afka kala furatay. waa wareey war isku soo baxoy ala baayay dadkii jug wixii guriga ku noolaay oo degnaa familiga ahay iyo wixii dariska ahaayeenba waa la isku soo baxay. naam maxaa kugu dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim naam maxaa kugu dhacay waxay tiri waxaa igu dhacay wiilkan ay xoogay waa biisi qabay xoogay waa wareey baayay manooliyay baroore afka kala furtay. dadkii iyada familkeedii ahaa oo guriga ku soo baxay qeyladeedii baa wiilkii inta qabteen bag iyo xawada laga tumay wiilkii sidii loo dilaayay lagu joogsaday. waxaa dhacday sararta dhinaceeda inay la faka jabaan. wiilkii tacbaan oo sakraada meesha ka fakada uu ka cararay saaxiibkiisa u tago xir saaxiibo arintaas ay ugu dhacday. islaanta aabay aniga inta i haweysatay ee tiri ilaa kaale meeshaan imaa ani adiga caaw waxaan rabaa inaan ila seexatay baan ka diiday. markaan ka diidana afka inta kala furtay waxay tiri asaga bi xooga wada aniga dambi aan lahayn korka laga saaray nabiga naarta ka kulul. ilaahay waxaan ka bariyay in nafta in ilaahay wax ka foolxun ilaahay tusiyo waa isku buuxdo uuray lahayd bis
wiilkii saaxiibkiisa ahaa ayaa waday isbitaal oo geeyay adiga ninkabuu u raadiyey feerihii yaalla adiga loo toosiyey waxaan ku leeyahay la haagay isbitaal la geeyey daawooyin wiilka saaxiibkiisa shafeeyey maasha allah waxaa dhacday asxaabteeda qaaliga ah in maalin maalmaha ka mid ah oo odagii loo sheego la wacay odagii la yidhi hore ma ogid miyaa wiilkaaga saasuu sameeyey gabadheeni ku xadgudbay odagii asoo waxba hubsanin buu inta soo booday tigidka soo goostay buu imaaday marka allaal markuu imaaday oo wiilkii inta u tagay oo wiilkii habaar marku siiyey oo yidhi saan allah kaa dhigo kaas allah kaa dhigo manaagteedii hadda macday manaagtii aniga aan qabo hooyadaa camal eedoo weysada kaa jibinaad aad haweysatay ilaahay saas ha kaa dhigo ilaahay kan ha kaa dhigo habaar wiilkii odagii meeshii ku kala dhinteen calaa kulli xaal wiilku wuxuu yidhi ilaa xaq waa soo daahiri doonaa maruu soo daahiraba ilaahay waxaan ka baryayaa beenta iyo faseexada ee ii gaarsiisa naagtaas ilaahay inuu ka jaasiiyo uuray leedahay ilaahay inuu ka jaasiiyo baa ilaahay ka baryaaya asxaabteeda qaaliga waxaa dhacday in naagti muddo kadib odagii joogay muddo kadib waxaa dhacday habeenada kamid inay fool qabatay ayadii ilaan uurkii weynaaday muddo kadib foolaa qabatay habeenada kamid bilaheedina waa la dhaafay 9 lagu dhalaaye 10 lagu dhalaaye male 12 bilood ay mareen ay sakaraaday ay tacbaantay ilmi waa kuwana ma soo baxayaan mucjiso ku noqdeen sababtoo ah dad qof bil aadana oo xaq ka galin oo aad tiraad xaq buu iga galay ilaahay qulubtiisa qof walba soo daalacanaya mar buu soo daahiraya dambiga qofka aad ka gashay ilaahay mar buu ka soo daahirinaya oo ka soo bixinaya ya nabiyana waxaa yidhi waa tii naarta ka kululeed saxabteeda markii dambeetay ayadii inay is aragtay inay dhibtootay ee rafaaday ee ilmihiina soo baxeenin bilaheedii dhaafeen waqtiga dhali jirtay la dhaafay way dareentay in laga haysto dhinaca wiilkii ee beenta ka sheegtay odaygii waxay ku tiri walaalow waxaan rabaa inaa wiilkaaga ii soo raadisid oo ii soo wadid oo ii keentid inuu igu tufaa rabaa maxaa dhaca oo kugu tufaaya wuxuu igu tufayaa wiilkaaga qaladaan ka galay beenaan ka sheegay aniga asaga ma uusan xoogin waa xooga beenaan u dhahay marka meeshaas dhibkaan meesha iiga yimid meel kale maaha waa wiilkaaga oo aan beenta ka sheegay oo nabtay walaalow wiilkaa la soo raadiyo si oo igu tufo waayahaa la dhahay asxaabteeda qaaliga odaygii wiilkii oo raadiyey meeshuu ku ogaawoo ka tegay meel kale oo aaday soo u raadinayay saaxiibkiis u raadinayay inta ka dhacay iska dawareegsi ka dambe muddo kadib wuu helay wiilkii ay aabihii way is heleen markay aabihii iyo wiilkii is heleen waxaa dhacday in oo loo waco la yidhahdo haye kaale hebelow kaale wiilkeygiio kaale eedadaa ku tuf markaas wuxuu dhahay kaale ku tuf markii la dhahay wuxuu yidhi waa hal sharuudaan wataa waa ku tufaa muxuma laakiin hal sharuudaan wataa aaba aniga waxaan rabaa eedada inaan ku tufo hadday rabto yaa aniga ma ayada damcay mase ayadaa idamacday ha sheegto haye ayuu wiilka saasuu ku leeyahay hadda hadal markaasay waxay tiri ima damcin asaga anigaa damcay aniga makaa damcayna oo asaga iga diiday oo yidhi maya barnaamijkaan usoo jeeda oo asaga iga diiday anigana markaas waa i xooga been aan dhahay mana yani asaga maba i habaysanba anaa habaystay asagana wuu iga diiday kadibna anaa ku sameeyey inuu waa i xooga dhaha anaa dhahay saas miyaa ha haye ku tuf maan dhawaaye qaar alla kusiiya wiilkayga ku tuf weeshuu ku tufay waay dhashay wiil meedahay dhashay ayadii ilaahay waa kala keenay markuu wiil ku tufay wiil meeda dhashay wiil meeda marka dhashay odag wuxuu dhahay maadaama aba anoo maqan wiilkaygana igu dirtay aad ka dhigtay nin dambiile ah dambigana adiga aa laheyd ani qof maqan oo gobolada yani wadamadaas u safar aan ahay oo inta badan aan kula joogin dad kale iska dhaafay wiilkaygaba aad damacday walaahi odayga aad iyo aad ugu xumaaday meeshii oo ayada markay dhashay ilaahay kala keeno cunugii waa lasoo doogay saqiirkii meeshii oo ayada ku furay dalaaqadeeda ku yeeri oo yiri naag wiilkayga damcay anoo maqan wiilkayga aniga aa dhala damacday niman kalena ma dhaafayso
saasaad iiga fasaxantoo dhahay meeshuu ayadii naagtu lagu dalaaqay wiilkiina meeshii odayga oo usoo laabtay yiri aabbo iga raali noqo meeshii odaygii dambiyaan kaa galay wiilkayga ku yiri cafis ku weydiistay meeshaasaa wiilkii iyo odaygii saas ku heshiiyeen naagtina saas ayaa lagu furay oo reerkii uga burburay beentii iyo wiilkii iyo dhibaatadii ay u geysatay iyo aflagaadadii ma ahan in marka qofka bini-aadankaa been laga sheego ama la nabo nabyadana waxay ka kulushahay naarta marka asxaabteeda qaaliga ee ma ahan in laysku dheelo marka haddii aad ka hesho videogeyga subscribe saar leegna saar gambaleelka taawo commentani ka bixi waad ku mahadsan tahay daawashada ay daawateen waa janalkiini maam sharaf asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu